عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان ميلو بيقى داونيسان جمعة وناكسن متقانا ولا البرنامج كبرنامج حساسي أواي برنامج هون تطابنا أواي برنامج قصوين على الحماة أو في الحماة بدن أو مروق أو كذا عن دلك فيلم عاصمة هلسنكي هذا كوفة بين هذه هذا دمان سود هذا ولا ليال قصة حنون بدنا وحكي كذا عادي متقانا عاصمة فيلم هلسنكي نين باكستانا أو مسلم إسكندرية أو شيطانة متقانا أو حو آدي أد أفر حمية ومتقانا ودبعت بدن أوجيستي دمر سوماليات ودقن هلزيق دقن نكان وحوا نين باكستان أو وإمام ومسجد إمام كيه مسجد جرواي باكستانيين فرتين متقانا وحاكودو كذا أو إمارة بنغلاديش باكستان مركا متقانا باكستان تحلل كوميونيتي لهذا سدوكتي مراديال أجنبك كوميونيتي وليه كوميونيتي كان جوني وشقيا مساجد كانوا جوني وشقيا marka waxa waaye masaajidkan wuxuu ka furan yahay kaskus keelada Soomaalidu way yaqaan hoosteedu ka furan yahay masaajid yar waaye walaa ninkan sheekadan wuxuu bilaabay 2016 ku bilaabay ninka waxa waaye dadku waxa waaye sixirka dadka u sameeyay waaye dadka jinka dadka akhriyo waaye marka Soomaalida qaar waxay aaminsan yihiin Soomaalida qaar suufiyaal way suufiyaasha laakiin qaar fiican ah jira qaar waxa jiro aaminsan quraafaadkii beenta aaminsan sida ogtiin Soomaalida waxa waaye qurbaha isku sixiraan Soomaalida qurbaha dhibaato isugu geysan ay dhaxdooda macna marka ninkan waxa waaye jaaniska ka faa'iideystay naaga Soomaaliyeed oo isku sheegeen waxaana sheekadan keenay naaga Soomaaliyeed oo dhahay mataqaana waa xanuunsanahay dhakhtarka markay u tageen dhakhtarka la waxa qabtay mala maskaxda lagaga jira daaweyn loo qoray Soomaaliya sida ogtiin marka ninkan loo geeyay ninka markii loo geeyay ninkan wuxuu sameynaa mataqaana waa in soo wada sheekada meesha iska soo gali doonto ninkan waa la dili doonaa imaamka waa la dilin Soomaaliya dili waa idin kaga sheekay doonaa kiiskiisa maxkamadda taala booliska hadda baarista ku dhaqaaqay marka ninka Soomaaliga saddex naag oo ninkan oo naagii ka furay taasna idin sheegi doonaa marka ninkan waxa wuxuu sameynaa walaalayaal saliid iyo biyo isku daraa oo naagta siinaa markuu siiyo wuxuu leeyahay waa ku caafimaadaysaa markaas waxaan ku dhahay 2 week 3 week kadib oo u imaanaysaa ayadoo mataqaana wixii saliid u baahan marka saliid uu siinay waxa waa sixir waay macnaha in ayada asaga macnaha adagtay asaga ku noqoto sixirka nooc badan uu leeyahay walaalayaal sixirka nooc badan uu leeyahay Soomaalida dhaxdeedu isku sameeyay hadda Finland ninkan waxa la wuxuu kaloo sameeyaan waa in soo naago farxo in soo wada ninkan wuxuu sameeyaa rag Soomaaliya u taga waxay leeyihiin ninkan horumarkiisa ma rabo ninkan wanaagiisa ma rabo ninkan sharaftiisa ma rabo ninkan xoolaha intuu ku yeeshay ninkan waxa rabaa in ay qabato hatta uu sameeyaan rag Soomaaliya hatta uu sameeyaa ninkan waa nin Soomaalida dhibaato badan u geysto way taas waxay keentay Soomaalida Finland inay isku mashquulaan taas waxay keentay masaajid aad aragtay inay isku mashquulaan masaajidkii dhan oo baasir oo loo igmaday inuu horumarka ka shaqeeyo seminaaro oo Quraan qabto xadiisi qabto wacyigelin sameeyo taakasku sidoo kale ah waa isku mashquulsan waxay ku mashquulsan cimrada iyo xijka hadda cimrada xijku aragtay waxa waaye ma jiro marka wax ay hayaan male aw bulshada maxaa loogu adeegi waay bulshada maxaa Quraanka loo bari waay bulshada maxaa wax loogu geli waay waxaas ma jirto wallahi bilaatan abisho wallahi dadka Soomaalida Finland wax kale ma waxaan hayo wallahi sixir ay dahay masaajidka baas aadagtay sixirkan waxa saga qaray Quraanka hala badiyo masaajidu taas baas Quraanka badiyaan meel Quraanka hala badiyo walaalayaal aniga kelmadda beenka shay waxa marqaati noqonay Buuzaari oo dhan naagaha joogo wadaadkaas marka u tagto muxuu idin si hala dhaho naagaha Soomaaliyeed Buuzaari joogo naagaha Soomaaliyeed garoob intii la qabo macna naaga badan loo geeyay oo dhibaato u geystay ninka marka naagta markuu u tago walaalayaal Quraanka markuu intuu soo aqrinin waxa waaye wixii uu sameeyna sixirkii uu sameeyna markuu sameeyo tusbax weyn oo wata qamiis uu soo gashana waxaan ku dhahay qolka hoos uu soo xirana sheekada ma kaligiis marka eed kadib rag uu bare maxay naaga badan oo baad oo Soomaaliya oo lacag ka qaadan lacagta ayuu tada asay siinayeen naagaha ninka marka afar naag shan naag maalintii u tagi kar wallahi markuu wixii ku akhriyo sayid u tagi jiray xad u tagi jiray qaarkood waa ogyihiin maxay naagta markay ay miirkeeda u baxo maxay saliidan waxaan u siinaa miirkeeda naagta waa bixaysa markuu baxo shiino waxa galay iyo waxa korkeeda jirkeeda lagu sameeyay shiino sheefilid laakiin qaarkood ma sheegan waa aamusayaan marka naag walba Soomaaliyeed oo garoob atii la qabow hadii wadaadkaas waxaas uu kugu sameeyay aad ogtahay in wax aad iska dareentay dacwo ayna sameeysaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabso ninkaaga xaqiyaan ninkaaga qiyaanta تيف قربت هذا إلهي كعب صع دنبي أتكون علي أو حرام أتكون علي ولا ليال نكان دورسنو شكلنا ودي سومالي بدن وقتها أنتو قرآن كقرافات كسحر كسمينا أو دن أو دمر كسوماليات رج ويرين رج قارة إلى توم رج مرة لكن دمر كأدو بدن وحاصل ما أنتوا حنوسيين والله بلا تلفزيون وحنوسيين ما حركة سنة نكذا قبل عايزوا جورجا في السوق المية اللي جوكتو
وأوينيسا واحد ونك كسمية ملح ما كسر كوريا سوقله المياه طويا المياه اللي هيستا واسكوينيسا فق اسكوينيسا سحر كهاي نك وحولي محاكو دحي شيخ أتك أسألوجينا وإذا دي تكسكس واللي إلوبي وإذا دي باصل واللي إلوبي نك كان حرام كقبسي والله بلا طلع حرام كقبسي ما أنتوا حي مريسا باكستاني أنتي يا يود إهد إني ما أنت نحنتان ولا ليال شكل وحمد وحد عدي نك كان قبل أو ير هذا النسو جورسي أو قبل أن ودك كويسون دوري تمسني جوكتا قبل يروح حليوة نينا جورسي أو إسجعلادين الصومال أصلا لليراء ninka Soomaaliga gabadhan ninkan gabadhan waxa way u jeclaaday ninkan sixrow oo wadaadka waa imaamka masjidka dhan oo waxa way masaajidka sirka Bakistaaniintu way wallahi bilaa tala qasracina ka sheekino Bakistaaniintii arinta markii loo sheegay shaki ay Bakistaan ay dhaxdo shaki galay ay dhaxdo asqabsay Bakistaaniintii laba group ay kala bixin group waxay dheen ninkan intiisa hawshan weynaanin ninkan horta banaanka dhigno masaajidka aan ka burino mataqaanaa in Soomaalida wacno nimanka masaajida Soomaalida iyo Soomaali community aan la shirno gabdhaha kulli hal soo wada baaro istaabsalo kadib kiiska warqadaha la buuxiyo Soomaali community wadaadada Soomaalida kiiska maxkamadda la geeyo booliska loo gudbiyo hal la baara ninkan inta naag uu farxumeeyay kadib kiisas lagu qaadaa sheekadan waa very waxa way fakaba asi way wadankan waxay ka tahay wax weyn ka tahay nin dhan oo imaam masaajida ama nin meel ka shaqeeyo intaas gabdhood farxumeeyay oo fuuli jiri wax weyn wadanka ka tahay koox kale oo isla Bakistaaniinta oo ninkan oo caawinayo oo saaxiibadiisa ama ku dhaw waxay dhahan arinta anaga ma qosayso Soomaali community oo qosaysa Soomaali community dacwo ha sameeyaan Soomaali community deerbaa ha dacwadaan ayaga u taala anaga ninka anaga ma taabanayno masaajidka waa ka burinayna laakiin anaga asaga wax ma u geysanay oo ma dacweynayno laba group oo kala bixin labadooda dagaal ka dhaxay ayadoo dagaalkii buuq uu socdo aan gabadhii ay idin sheegayo oo ninkan uu mar u tagi jiray farxumay jiray ninkan waa loo sheegay ku Bakistaaniin isla shaqeeyaan ninka la Soomaaliya u sheegay wuxuu dhahay arintaas jirto ninkaas gabadhaas aad looga shakisan yahay naagaha badan uu farxumay laakiin gabadhaas aad looga shakisan yahay maxay yeelay gabadhaas maalintii laba mar saddex mar ee uu maada waxaan ku dhahay waxba ku daldalaa meeshan ku fuula nina ku dhaartay oo kitaab ku maray oo Bakistaan oo naar ku marayo kitaab ku martay asna marqaati loo haday maxkamad la tago oo ku dhaaranay hindhiisa qolka soo furo arkay soo kor fadhiyo ayadoo wali waxa lagu leeyahay oo baalkiisa afkoro jirto wallahi wax jira ishu wallahi wax jiro ma jimcaa in baa jira ishu wallahi ana ful xumada fiina ka socod Allah Soomaali fiina badbaadi walaalayaal Bakistaaniinta laba group kala baxay groupna waxay dhaheen Soomaalida wax naga gala male Soomaali community ayaga hadeerto hadda weystaan kuwana waxay dhaheen Soomaali community ka u sheegayna Soomaali community ga la raadinooya wallahi ma jimcaa way dhaarto dhulka Allah ila gooy cunuga kaysa markii la dilay cunuga Soomaaliya la dilay ogtiin laba nin waxa dishay ninku horeey waxaan ahaa soo qoray dhahay aha waxa loo dilay fiiha rekosa loo dilay maxay aan wadanka aqoon u leeyahay finishka qof iska madilayaan nink soo qoray booliska dhahayaan waxay soo qoray ana soo qoray saddex mar soo qoray saddex mar booliska ma dacweena hadda wadanka sharci u leeyahay maxay qaadi karaan booliskani saddex mar soo qoray aan dhahay ninkaas rekosa booliska wuxuu dhahay baaris socoto wax baaris waxa dhahay wax baaris liiraad ciwaanka dad badan fiirsaday wax baaris liiraad ma jiraan aan dhahay cunuga si bareer oo nacaba loo dilaan dhahay booliska wuxuu dhahay Soomaali community-ga aaw anaga markas waxaan ugu dhacaa Soomaali community-ga la raadinooyaa dadkiinaan oo Soomaaliyada ama ururada oo difaacayo muxuu ku qabtay urur Soomaaliyada muxuu ku qabtay ama urur Soomaaliyada muxuu ku qabtay Soomaalida gabdhaheeni iyo dumarkeeni hadda anaga aan difaaco wayna ragiina dhan shame on you ragga Soomaalida fiilan shame on you habakateen itis هذا شرفت إكرامنا نوقع قادين ضمر كنا ما ندفاع وين باكستان ما ندنا ندفاع في التصاطن أيضا بسك لا يسكوي تاس الصوماليس قبيل محكوم ترى ما توقع ساسا قبل لو عينه يا ساسا ناقل لو فرح منه يا ناقل ساسا لو سحره يا محو قبيل كوترا في التصاطن محو قبيل كوترا محو قبيل كوسو زيادنا ما باكستان ما قبيل كوي قان فينش ما قبيل كوي قان ما جريرة قبيل كوي قان ما عربة قبيل كوي قان ما أنت ميلبول وعين ميلبول wargabdhiina difaaca naagiina difaaca ninka Soomaaliga ah ninkii u tagay ninkii dilay hadda waxa way baaristu waa socotaan ninka inta dhanaa waxba ku dhuftay ilaa hadda ninkii oo naagaha sixray ilaa inta waa go'antay inta waa fuqsantahay wallahi bilaatana bid sheegay wallahi naaga badan oo farxumay naaga badan oo fuulay marka wax way haddaba nin kasto oo naag qabow masaajidkaas naagti la geeyo xaaskaaga waxa raali uga tahay in la fuulo adaa raali uga والله بالله طلع باكستانيين تي بنغالديش كدن اكو شاكيسنيس ان ناغي سومالي مساجد كاس لا ودا غيي او دن او اودي قول ku xirto inuu wada fuulo oo siriidas u siiyo hada beenka sheegaayo halka bada beenka ana halka bixin hada beenka sheegaayo ama wadi salaama ilaahay ka cabsada
dumarka hala difaaco ragga hala difaaco masaajidka itaa kaskus ibasilow arrintan idinka idin taallaa gartaan waa inaan gashaan gabdhahaas waa in la difaaca jira. Assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.